Kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaal yar oo aan u talagalnay in aan ku iftiimino sida loo adeegsado Mendeley Reference Manager ama software-ka reference-yada iyo citation-ka research-ka markaad qorayso warqadaada cilmi baarista ama article review-ga ama peer review articles-ka qaab citation-ka ama valid citation-ka iyo si automatically ah loogu soo geliyo warqadaada waxaa la yidhahdaa reference-ga labadaba. Haddaba marka koowaad dabcan title-ka aad ka shaqeynayso ama article-ka aad review gareynayso warqadaha aad kasoo xiganayso inaad la soo degto Chrome-ka aad gasho internet-kaaga aad la soo degto dhammaan warqadaha aad isleedahay xogtaas oo ku jirta dabeeto aad ku aruuriso hal folder aad ku wada aruuriso dhammaan PDF-yada iyo warqadaha la midka ah haddii ay dabcan aad soo xiganayso PDF-ya haddii kalena online-ka iyo meelaha website-yada ama domain bases-ka aad kasoo xiganaysana waa meesheeda oo arki doonaa. So Mendeley software marka koowaad inaad soo degsato internet-ka gasho aad soo degsato soo garaysato install garaysato aad ku rakibato laptop-kaaga ama computer-kaaga email-kaaga aad gashato marka email-kaaga iyo howlahaas aad gashato uma baahnid wixii ka dambeeya internet inuu markastaba kugu xirnaado haddii process-ka ama dariiqa loo marayo installation-ka iyo crack-ga aad si fiican usoo martay iyo maxaa la yidhahdaa sign up-kaba ama email xariisashada markii aad ku rakibato si fiican waxa weeye aad iskula qabsiiso computer-kaaga iyo software-ka here halkan buu yaalaa iminka waan soo kicinayaa software-ka Mendeley-ga dabcan halkan way faaruq way ku haysaa marka ugu horeyso aad soo kiciso ay kugu horeyso isticmaalkiisa halkan way bannaan tahay dhankan way bannaan tahay so markuu sidaan kale kugu soo furmo halkan ay bannaan tahay dhinacan wuu bannaan yahay dhinacan waxaa kugu muuqan doona library-gaagii ama sida word-ka kale weeye waxyaabihii aad u isticmaashay recently added documents recently read all documents favorites ama kuwa aad badanaa aad booqatay waxyaaba noocaas kugu qornaan doona aan hoose anaa ku qortay waa tusi doonaa markaad kor u timaado halkan file iyo edit iyo view iyo tool help baa ku yaala most of them iyagoo files ayaa halkan lagu soo rakibay adiga meel waxaad ka isticmaalayso wordkaaga inaad sii furato oo halkii aad wax ku diyaarinaysay document-gaaga ku diyaarinaysay ayaa hawsha ka bilaabanaysaa clear this clear kareeyo waxaan tegayaa Mendeley-gaygii anoo weliba xasuusta ama niyadda ku haya halka aan isugu geeyay faylasha aan soo xiganayo folder inaan isugu geeyay magaceeda aan garanayo meesha talaan aan garanayo ayaan kadib waxaan gelayaa wax la yidhaahdo Mendeley halkan yar ay ku qoran tahay folder-ka ka muuqato calaamad green-ka ee balastaana leh ayaad click ku siinaysaa halkan waxaa kaaga samaysmay new folder wax la yidhaahdo magacaad ku qoranaysaa searching yes waxaan soo xiganayo dabcan markaan kusoo kori lahaa weye maanaa magac kastaad wala bixi kartaa title-kaaga ku salaysan yahay ama background oo ku xasuusan karto halka ay ku wada jiraan document-yadaada ayaad ku qoran kartaa halkaa banaan ku dhufo deetana folder-ka kuu samaysmay folder-ka aan sameeyey waxaa rabaa inaan kusoo wada guro dhammaan faylashii aan soo dejiyey PDF-yada aan doonayay markaas ay wax kasoo xigto iyadoo sidaa kugu select garaysan ayaad halkan yarta soo furaysaa fataxdan yarta ama meeshan aad ku qoran tahay deetana waxaad oranaysaa add files folder-kan ayaad kusoo guraysaa faylashayda waxay yaalaan desktop-ka qaanada leh kusii jiraan oo la yidhaahdo 2022 so kuwaan oo dhan ayaa ka mid ah kuwa aan soo xiganahay so waxaan select garaynayaa ama xabad tan waan u gelin karayaa ama tan midda u horeyso saa u select garaya ayaan shift iyo arrow-ga hoose shift plus arrow down arrow intaan doonayo inaan wax kasoo xigto ayaan selection kadibna open halkan waxaa kugu soo qormay folder-kii magaciisii halkana waxaa kasoo muuqday faylashii aan soo geliyey
kow labo saddex afar shan lix file baan soo geliyay ama 6 PDF baa soo gashay oo ku wada jira qaanada la yiraahdo research PDFs mid haddaan u taabto title-keedii iyo author-keedii iyo xogteedii halkaas kasoo muuqanayaan tusaalahaan iminka tan oo kale ninkan Bremner la yiraahdo warqadda uu qoray iyo raggiisa ay qoreen ayaan doonayaa inaan bal akhriyo oo aan qoraal kusoo xigto Acrobat ama PDF reader waad ku furi kartaa halkan laftigeeda waad ka furan kartaa PDF meeshaan yar ee files qoran tahay warqadda baa ku hoos lamaasan ama ku lifaaqan hal mar baan gujinayaa kadib warqadda halkan bay iga furmaysaa isla mandeliga gudihiisa ayay iga furmaysaa PDF-kii soo waan akhrisanayaa meesha aan doonayo inaan kasoo qaato qoraalka aan doonayo inaan kasoo qaato ayaan selection ku sameynayaa tusaalahaan anigu paragraphkan oo kale ayaan doonayaa inaan kasoo qaato halkan waxa uu qoray right click copy kadib waxaan imaanayaa wordkaygii waxay halkii aan ku qoray aan ku diyaarinayay tan laftigeeda iga tirtir aan title-kii maybe ku title title enter halkaan ka bilaabayaa paragraph-kan aan dhigayaa waa dejinayaa waqti xabiisan kartaa qodobkiisa selection justify right side halkan weli space baa ku jirta markaan sidaa u habeeyo halka baxashaas waxaan idhahdaa joogsiga waan iska tirayaa sababtoo ah citationkii ama body citationkii ayaan ka badbaadiyaa kasta u badboodaya soo ii yaalla ayaan waa inaan xasuusnahay warqaddii aan kasoo qaaday qoraalkan title-keedu wuxuu ahaa sidaas oo title-keedu ninka qorayna S Bremner ninka la yidhahdo Bremner ayuu ahaa waxaan kusoo laabanayaa wordkaygii halkaa yar soo karsarka ii yaallo ayaan waxaan tegayaa references halkan reference dabcan waa inuu halkan mandeliga ku jiraa qaabka loo soo gelinayo iyada waa sheego kale markaad u baahan in la tusaaleeyo qofkii ugu jiray doonayana sida citation reference loogu sameeyo ayaa muuqaalkan ugu talagalay halkan yar qoran insert citation waad marbaad click ku siinaysaa qoddan yar baa kusoo bootay deetana waxaad ku dhufanaysaa go to mandeliga kusoo furmay warqaddan ama PDF-kan ayay ahayd mid aan kasoo qaatay paragraph yar midaan Bremner ku qoran tahay hal mar baan saas u keli karaynaya ama aan ku dhufanayaa cursor-ka kadibna meeshan yar ayaan ku dhufanayaa site ku qoran tahay ama calaamadahan inverted commas-ka double inverted commas-ka ku qoran tahay hal mar ku jir kadibna sub wuxuu kuu soo gelinayaa citation-kii oo ah author-kii iyo sanadkii uu qoray warqaddan kadib joosi inta paragraph-kaas waa iga dhan yahay iyo sanadka jiray ama aad dhisay ama qortay ku diyaarsan yihiin waxaan ku laabanaya mandeligii waxaan doonayaa isla warqaddiisii inaan kasoo xirto haddana qoraal kale aan sii yar akhriyo halkaa yar baad kusanaysaa oo files hoosteeda maybe I need this paragraph oo ka hadlayo meesha u dambaysa dugaalka diido dhankan kale kasoo select garee no matter last line-kaas uu ii select gareyn leeyahay si kale ugu dayo so right click copy this is the second paragraph of my paper control pad C aan soo dejiyey beerta kalena intaas kalena waa ku daray markaan space waxaa inaan soo geliyo body citation-kii ama author-kii iyo sanadkii halka cursor-ku ii yaalla ayaan ku dhufanayaa insert citation warqaddeedii baa ii soo booday this little menu go to Mendeley ayaan hal mar click ku siinayaa waxaa ii soo baxday warqaddii kasoo qaatay qoraalka ii dooran tahay dabcan calaamad baa saaran deetana waxaan dhufanayaa site hal mar haddana muxuu kusoo geliyey isla Bremner-kii ninkii laftigiisa kusoo geliyey oo qoraalkan waxaan kasoo qaaday isla ninkii so uma baahnid laba jeer inaad soo geliso ninkan haddii aad labada bara kasoo qaaday
samayn kartaa hal paragraph ayaad ka dhigi kartaa isku xigaan qaabs kale kana kan hoose keliya ayaad ka kaaftoonaysaa haddii aan garanaysaa ay paragraph u dhaxayn haddii isla paragraph soo kala galo you can do it loo kala soo celin kartaa so iminka waa authorkii iyo sanadkii oo gudaha ku jira ama citationkii weeye citationka waxaa yidhahdaa marka uu ku dhex jiro qoraaga iyo sanadkuba qoraalka dhexdiisa ama warqadda gudaheeda sidee baan usoo gelinaya waxa yidhahdo markii aan warqaddeeda dhameeyo أنا كون جوجلين فرنسي كفرتي waxaan ka yarakooday French style ka isticmaalayso AB style ya ma style ba Paris style ba Vancouver style ya Chicago ya halkan ayaa ka dooranaysaa meeshan style qontay ama manage sources of French style aad ka dooranaysaa iminka APA style yaha automatically lagu dooran yahay oo aad commonly used waa American halkan oo jira American Psychological Association 7th edition third edition leeyahay MLA ayana jirta so adiga markaa nooca isticmaalayso Modern Language Association oo MLA type-ka so kaasaan u diisanaya APA kaasaan u diisanaya alright warqaddii dabcan waan soo dhexeeyey kadib waxaan u baahanahay referenciyada inaan soo geliyo tirtirkan iminka tirtirkii referenciga waan qoray oo ah heading 1 kadib halkan waan kushinaya inta kala masale waxaan rabaa inaan soo geliyo dhammaan wixii citation ahaa halkan iminkaan soo wada geliyo dhib kale oo aan marin meel kale kumaanan qorin xusuus warqad xusuus horamaanan qoran page kale kumaanan shan dhammaan citations aan soo geliyey iminka ayaan rabaa inaan hal mar kaas aan kusoo wada organize gareeyo waxaan ku dhufanayaa meesha article references kadibna halkii marka hore aan kaga dhufanayay citationka iminka waxaan ku dhufanayaa insert deliver so iminka Bremner la yiraahdo sanadkaasa kaliya ayaa ku jira dabcan iminka labada paragraph oo soo qaadnay so haddii ay jiraan kuwa kale oo badan oo aad soo fiirto oo warqaddeeda u diyaarsan so alphabetical order u habeynaya sidoo kale farta size-keedii aan kaa bedelin qoraalkaagaana farta uu ahaa size-ka uu ahaa font size-ka font name-ka font style-ka dhammaan shuruucda noocaas oo wax interruption ku sameyn ama kaa fulid garan ayuu ku soo gelinayaa alphabetical orderna ay u habaysan yihiin intaa waxaa ku sii dheer hangingkiina uu ku sameeyey oo adigoo aad muddaha usoo xareynayn halkii qoraa qoraalkiisii baad soo gelinay so this is how to cite and reference using reference Mendeley Reference Manager su'aalo la soo weydiiyay waxaa ka mid ahaa halkan way bannaan tahay there is no documents ayuu leeyahay Mendeleygu marka halkan aan ku dhufto halkan waxaa kugu soo qormaysa no documents selected wax documentiya lama dooran ama lama select karayn that means ma aadan gujin kuwaan mid ka mid ah haddii meeshan yara bannaan aan gujiyo wuxuu kusoo saarayaa no documents are selected marka waa sax haddii aad gujiso wuxuu kusoo saarayaa dhammaan warqadda informationkeedii authorkii yearkii volume-kii issue-gii pageskii intaba wuxuu soo saarayaa iyo sanadkii inkadkana waa journal ama waa journal article weeye haddii aad website iyo waxyaaba lamidka ama thesis laftigooda aad kasoo raacanayso sidaas si lamid ah si automatically kugu soo gelinaya qoftaada keliya waxaad u baahantay inaad halkan folderkan aad soo geliso filekii kadibna inta hadda aan kusay aad ku samayso so that's it intaan ugu talagalnay Mendeley sida loo isticmaalo warqadaada mahadsantihiin tawashadiina la sheegaray waxyaarta kale subscribe saar channelka wixii su'aalaha qabtaana commentiga inoo reeba aad baad u salaamay wanaagsantihiin